haddii wax loo baahnaada ee noqoto bulshada meesha ku dhaqan ha noqoto maaha dudubal kaliya Soomaaliya oo dhan qofka ugu horeyso ee wax qabadkeeda wax u qabanaysay qareeno u qabanaysay la tacaamilaysay qoysaska arrimahooda xalinaysay dawladda la diilgareynaysay lama soo koobi karo haddaan idinkaga sheekeeyo taariikhdeeda runtii Maryan ilaa ay noqoto madaxii ugu sareeyay ee deegaanka aan deganeen dalkaasi Canada Toronto Maryan waxa ku soo xulanay Maryan Maysan rabin xildhibaannimadan inay iyada maanta xildhibaan isku soo sharaxdo laakiin mar alla markii aan aragnay basashinkeeni iyo arintan aan falaqeynay Maryan anaga ka codsanay inay xildhibaan noqoto maaha iyada wax ka yimid waxaan hubnaa qofka aad dirsanaysid sidiisaba oo la dirsanayo waxa loo adeegay waa bulshada waxa la raba in wax la qabto waxa weeyaan ceelkaas biyaha ku jiro qofkii ka soo bixin lahaa qof aan la tijaabin haddii mar loo diro waa garan karnaa dhibaatadan haysato annaga khaasatan magaca Duduble dhinac walba aan dhibaatooyin badan naga haystaan hadday noqoto xagga shaqada hadday noqoto xag walbo waa ka liidanaa waayo dhibaatooyin badan ayaa u baahannahay la xalliyo markaan anaga falqeeyno waxaan ilaa waxa meeshan ku haboon oo waxa kaliya meeshan ka qaban karo Maryan Aadan Nuur xildhibaankana sidiisaba dadna way raadsadaan dadna waa la soo xushaa Maryan ma ahayn xildhibaan inay rabto inay noqoto laakiin Maryan anaga soo xulna anaga waxaan rabnaa inaan garab istaagno hal su'aal ayaa isweydiinay oo waxay tiri dadka musharaxiinta waxbay baxshaan oo qarash iyo howlo iyo lacag balse bulshadan u adeegay hadana dhinacaas dhaqaalahaas iyo howshaas Maryan waxaan dhahnaa anaga waxaan sameynaynaa anaga ku garab istaagayno waxaan hubnaa waxay tahay wax qabadka la rabo qofka aad dirsanaysid ma qof asaga wax gadanayo qof asaga la soo xulanayo raba inuu ku soo adeego laakiin hadda anaga aragno qof wax gadanayo raba inuu asaga wax gato ilaa kursiga asaga gatay asaga dantiis ka shaqeysanayo laakiin haddii aan aragno qof anaga soo xulna aan leenahay anaga ku dirsan anaga na matalaysa oo magacaas maqlisamo kaliya ma aha Duduble iyo Soomaalnimada sidaad ku matalan jirtay dalkaasi Canada aan kaaga baranay ayaan rabnaa Maryan inaad walaalay arintaad nala qaadid muddo dheer ayaan arintaas falaqeynaynay waxaan idin balan qaadayaa misaan huba idin sheegaya runtii inay noqon doonto waxaan ku faraxno aan dhahno wallahi way habooneed mar hore inay qabato Maryan inay xilkaan qabato inay bulshadan adeegeeda ay wax ka soo qabato waayo annaga sideena haweenkeena waxay shaqooyinka loo dhibo aad ay ugu soo firfircoonaadaan taariikh ahaan hadaan fiirino ma soo koobi karo hadda dad badan aan xasuustaa anigoo yar habartay xaabo Faaduma Xabad hooyo ugu oo ahayd iyada gudoomiye degmo dadka waxay ahaayeen dad runtii wax qabadkooda ragga aad iyo aad ugu firfircoon waxaan dhihi lahaa aniga runtii maanta waxay inoo tahay maalin weyn oo farxad ah in arinkaasi aan garab istaagno oo dhinac walba aan garab taagnaano bal aan aragna tijaabada aan sheegayno Maryan waxa aan ka sheegayno bal wax qabadkeeda inaan ogaano waxaan rabnaa inaad aysan noqon xildhibaanadii kuraastooda inay baxaan ayaga lacag ku baxsanayaan ayaga soo gadanayaan ayaga dadka wax siinayaan adeeg lama rabo waxaan rabnaa inaan qayb ka wada qaadano anaga dhamaanteena ilaa waxay u adeegayso bulshadeena xildhibaano badan ayaa la isweydiiyay maxay dadku wax ugu qaban waayeen waxay leeyihiin goormay wax qabanaa waa la soo furtay dadka aan u qaban lahayn ayaga waxaan haysan naga soo furtay see wax ugu adeegnaa Allah saas mar inay noqon waxaan rabnaa inay ku faraxdo aan dhahno Maryan anaga ku dirsanay anaga wax ku siinay anaga wax isugu ka soo dardarnay anaga matalan kursiga golaha shacabka noo fadhisaa waxa aad ku fadhiisina waxa weeyaan dadka ku soo dirsaday adeegooda baahidooda inaad buuxisid walaalayaal marweynimadoodayaal waxaan rabaa arintan runtii muddo badan ayaan ka shaqeynaya aniga xagga dawladda waxaad aragtaa niman dambiilayaal ah oo dambiga faraha kula jiro niman aan waxbana garanayn ayaa xildhibaanadoodii inuu ordaan meel geenayaan dadka aqoonti lahayn meel ay taagayeen waxaasan wax aqliga kale maaha ummadda ayagoo shahaadooyin haystaan wax yaqaan wax bartay ayaa baahi badan jirto meel walba taagayeen dadkii Maryan waxaan rabnaa mas'uuliyadaas aan hubno inay qaadayso inaad walaalayaal garab siisaan
aadna aysan noqon in la yiraahdo adiga kursiga rab ma iyada ma rabin kursigaana marna rabto annaga talbanay in iyadana matasho saa aan ula shaqeyno waana mahadsantihiin dhammaan madaxweynaha